Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaad naga daawanaysaan waa xogta Samiir Cadde Media. Kusoo dhawaada muuqaal cusub aan kaga hadlayno wadanka Qatar. Daawasho wacan. Dalka Qatar waa dal Carabeed waxaana uu ku yaalaa galbeedka qaaradda Aasiya, waxaana uu xuduudo dhuleed la wadaagaa dalal ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo dalka Bahrayn. Sidoo kale waxaa ku hareeraysan gacan biyoodka Beershiya iyo gacanka Qatar. Tirada dadka wadanka Qatar waxaa lagu qiyaasaa inay dhan yihiin 2.6 milyan oo qof. 383,000 oo ka mid ah ayaa la sheegaa inay yihiin muwaadiniin dhalad ah, halka 2.3 milyan ay yihiin dad qurbo joog ku ah wadanka. Bedka dhulka Qatar waa 12,571 kilomitir square, waxaana uu madax bannaanadiisa ka qaatay gumeystigii Ingiriiska 3 bishii Sebteembar 1971. Lacagta dalka laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa riyaal, waxaana uu ka kooban yahay 7 gobol. Waa dal uu ka jiro nidaam boqortooyo ah. Talada dalka waxay ka go'daa boqorka. Qatar waxaa ka jiro dowlad leh baarlamaan iyo gole xukuumadeed. Luqadda wadanka waa Carabi. Boqorka wadanka oo loogu yeero amiirka dalka magaciisa waxaa la yiraahdaa Tamiim bin Hamad Al Thani. Ra'iisul wasaaraha dalka Qatar waa Sheekh Cabdullaahi bin Naasir bin Khalifa Al Thani, iyadoo taasi ku tusayso in dalka gacanta ugu jiro qoyska Al Thani. Ku dhaqanka shareecada Islaamka ayaana la geliyaa awoodda ugu badan ee wadankaasi Qatar. Caasimadda dalka waa Dooxa, waana magaalada ugu weyn dalkaasi, waxaana ku nool 60% dadka ku nool guud ahaan wadankaasi Qatar. Ereyga Dooxa micnihiis ayaa lagu sheegaa inuu yahay geedkii weynaa, waana magaalo xeebeed. Magaalada Dooxa waxaa la aasaasay sanadka markii uu ahaa 1825. Waxaa horeyna loo oran jiray magaalada Albida. Magaaladan oo aad u dhisan ayaa ah meel ay ku shaqeeyaan dowladda Qatar. Sidoo kale waxaa ku shaqeeya hay'ado caalami ah iyo xarumaha warbaahinta TV-yada Al Jazeera. Dooxa oo dhowr jeer martigelisay ciyaaro caalami ah, waxaa la qorsheynayaa in marka la gaaro 2022 lagu qabto cayaaraha koobka adduunka ee 2022, kaas oo ay maalgeliso FIFA. Haddii ay taasi dhacdo, waxay noqon doontaa magaaladii Carabeed ee ugu horeysay ee koob adduun lagu qabto. Taariikhda dalka Qatar, dadka yaqaano waxay sheegaan in dalkani uu horey ugu tirsanaan jiray dalka Bahrayn intii u dhaxaysay sanadihii 1783 ilaa 1868. Ingiriiskuna waxa uu qabsaday sanadkii 1916, waxa uuna haystay ilaa 1971. Dalka Qatar waxa uu ka mid yahay wadamada gacanka Khaliijka ee dhanka ciidamada ugu tayada badan, waxaana askarta dalka Qatar lagu qiyaasaa 12,800 ciidan. 8,500 oo ka mid ah waa ciidamada badda oo loo yaqaano Coast Guard, halka 1,800 ay ka tirsan yihiin ciidamada cirka ee loo yaqaano Air Force. Dhanka dhaqaalaha, dalkani waxa uu ka mid yahay wadamada dunida ugu taajirsan, waxaana dadka wadanka lagu sheegaa inay u badan yihiin milyaneero. Dhaqaalaha ugu badan dalkani waxa uu ka helaa shidaalka, waxaana uu maalintii ceelasha shidaalka Qatar laga soo saaraa in ka badan 15 bilyan oo barmiil oo shidaal ah. Heerka shaqo la'aanta dalka waxaa lagu qiyaasaa wax ka yar 1% ruux inuu yahay shaqo la'aan. Sidaa oo ay tahay, hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay dowladda Qatar ku eedeeyaan inay u dirto shaqaalaha shaqo adag aysan qaban karin, kadibna ay ku siiso lacag yar. Dhanka diinta markaan ka eegno, wadanka Qatar waa dal muslim ah, dadkiisana waa muslimiin sunniyiin ah. Qiyaastii 5 ilaa 15% dadka Qatar ku nool ayaa la sheegaa inay Shiico yihiin. Dhammaan sharciga dalka waa mid salka ku haya shareecada Islaamka, xukuumadda ayaana fulisa. Xagga dhaqanka, waxay dadka Qatar la mid yihiin dadka dega wadamada Carabta. Raggu waxay ku labistaan qamiisyo iyo cimaamado, halka dumarka ay yihiin kuwa aad u xijaaban. Dumarka Qatar looma ogola inay kaligood safar galaan. Sidoo kale waxaan loo ogolaan inay gaadiidka kaxin karaan. Cunada ay cunaan dadka Qatar waa raashinka xalaasha ah ee diinta Islaamku ogoshahay, waxaana ay dhaqan ahaan u cunaan bariiska, hilbaha xoolaha, caanaha lo'da. Raashinka badda laga soo saaro ayaana aad loogu isticmaala dalka Qatar. Xulka qaranka kubadda cagta ee Qatar weligiis kuma guuleysan koob adduun, heer wanaagsanna kama uusan gaarin. Haddana waxay ku horeeyaan ciyaaraha kale oo ay ka mid yihiin orodada, basketball-ka iyo dabaasha.
Cayaaraha fardafuulka iyo tartamadooda ayay dhaqan ahaan u cayaaraan dadka Qadariyiinta ah. Magaalooyinka ugu caansan ee waddankaas Qatar waa Doha, Zubair, Al Wakrah, Al Rayyan iyo Massaid. Waxaan jeclahay muuqaalkayga inaan halkan aan kusoo gabagabeeyo. Haddii aad tahay channelka mid ku cusub, fadlan subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta hanaga baqilin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.